بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دبادة شيكدي كن هبين يهال هبين تانينا waa qaybtii afaraad ee sheekada. qaybtii saddexaad ee sheekada waxaan kaga tagnay iyada oo sheekada ay noo marayso markii uu boqor Shahriyaar yiri, wallaahi baan ku dhaartay inaan diri doonin ilaa ay sheekada ka dhammayso, waayo waa sheeko aad u cajiib ah. sidaas ayayna maalintaasi gabadhii dilka uga badbaaday. haddaba ku soo dhawaada qaybtii afaraad ee sheekadii alfa leyl waleyl ama kun habeen iyo hal haween. haddaba maanta waxaynu ka sheekeyn doonaa habeenkii saddexaad wixii ay boqorka iyo walaasheeda u sheekaysay gabadhii Shahrazad. markii habeenkii la gaaray ayay Dunyazaad tiri, abbayow noo dhammaystir sheekadii xalay iyo siday wax ku dhammaadeen. markaas ayay Shahrazad tiri, boqorow, taajirkii markii naftiisa badbaaday ayuu wuxuu u mahadceliyey odayaashii iyadoo meeshiina lagu kala dareeray. waxaase tan ka yaab badan sheekadii ninkii kalluumaysatada ahaa. markaas ayuu boqorkii yidhi, oo muxuu ahaa ninkan kalluumaysatada? sheekadii ninkii kalluumaysatada ahaa. Shahrazad waxay sheekada ku bilowday, boqorkeegiiyow, waxaa jiray nin kalluumaysato ahaa, aadna u da'weynaa, wuxuuna lahaa xaas iyo 3 carruur ah. qof ka faqiirsanaana magaalka kuma noolayn. ninkan kalluumaysatada ah waxaa caado u ahayd inuu shabaqa maalin kasta 4 mar badda ku tuuro, ka badan weligiis kuma tuurin. maalintii dambe ayuu soo baxay, wuxuuna imaaday baddii iyadoo xilli duhur tahay. markaas ayuu shabaqii badda ku tuuray ilaa shabaqii moolka badda ka gaaro. markaas ayuu isdhahay, fiiri, wax mar ma ku soo qabtay. markuu soo jiiday ayuu dareemay inuu culays yahay. markaas ayuu soo qabo isdhahay, laakiin aad ayuu u cuslaa, wuuna awoodi waayey inuu soo qabto maadaama oday waayeel ah iska ahaa. sidaas darteed ayuu huurigii uu saarnaa xeebta geeyey, asigoona shabaqii jiiday. siduu u soo jiidayey markuu soo bixiyey ayuu wuxuu arkay in waxa culus ee shabaqiisa qabtay maanta dhanna ku rafaadayey jiididiisa inuu yahay dameer baqtiyey. markuu odaygii arkay aad ayuu ugu murugooday, asigoo yidhi, laa xawla walaa quwata ilaa billaah. helista risqiga waa mid cajiib ah. kadibna mar kale ayuu baddii ku noqday, uu shabaqii tuuray. markii labaad asigoo yidhi, bismillaah. cabbaar markuu joogay ayuu haddana dareemay in shabaqii wax ku soo dhaceen, wuuna soo qabtay, laakiin waxay noqdeen jawaanay ka buuxaan dhoobo iyo dhagxaan. markii uu odaygii arkay ayuu mar kale aad u murugooday, wuxuuna meeshii ka tiriyey gabay uu micnihiisu yahay, hurki waayahow bas, haddaadan bas iga dhihinna iga cafi. nasiib uma lehee sii, mana samayn karee bas. waxaan u soo baxay risqigayga, waxaanse helay asow meyd ah. alla muxuu jaahil badan muuqdaa, caalim badanna qarsoon yahay. markaas ayuu mar saddexaad baddii ku laabtay oo uu shabaqii badda ku tuuray. markuu dareemay inuu culus yahay ayuu soo qabtay, balse nasiib xumuhu wuxuu soo qabtay qashin iyo dhalooyin. odaygii maskiinka ahaa aad ayuu u sii murugooday. mar afaraad ayuuna badda ku laabtay, laakiin markaan gacmaha ayuu kor u taagay asigoo alle baryaya, wuxuuna yidhi, ilaahayow, waad og tahay inaan 4 mar ka badan shabaqaan badda ku tuurin. 3 mar waan tuuray, waxaana ii hartay 1 mar oo keliya, ee ilaahow wax khayr qaba iigu soo rid. wuxuuna yidhi, bismillaah. markii afaraad asigoo markaan alle baryay, bisinkana u qabtay. kadib markii uu cabbaar sugayey ayaa waxaa dhacday in shabaqii cuslaaday, weliba culays aad u daran, ilaa uu ku sigtay huurigii yaraa ee odayga saarnaa inuu la guddoomo. kadibna odaygii wixii tabar ilaahay siiyey iyo juhdi markuu bixiyey ayuu soo bixiyey
wixii culayska badnaa, balse wuxuu noqday sanduuq maar ka samaysan, afkana ka xiran, iyadoo uuna ku aastaysan yahay faraantigii nebi Suleymaan. Wuxuu isdhahay, maanta calafkaaga ayaan saan noqday, ee sanduuqan qaad oo suuqa maarta iyo macdanta lagu iibiyo gee. Waa intaasoo quudkii maanta ku soo heshaye. Balse markuu qaad isdhahay ayuu qaadi waayey culays dartiis. Markaas ayuu go'aansaday inuu furo si uu u ogaado waxaan culayska badan ee sanduuqa ku jira. Kadib mindi uu watay inta soo baxsaday ayuu sanduuqii furay, balse wuxuu noqday sanduuq eber ah. Ninkii asigoo yaaban ayaa waxaa sanduuqii ka soo baxay xoogaa qiiq ah, kaasoo marba marka ka sii dambaysa sii xoogaysanayay ilaa uu qiiqii daruurahaas sabeeyey. Odaygii maskiinka ahaa aad ayuu ula yaabay. Kadibna qiiqii ayaa isqabsaday, wuxuuna isku beddelay cirfiid aad u weyn. Madaxiisa daruuraha maraayo, halka cagihiisana dhulka yaalaan weyninkiisa darteed. Wuxuu lahaa madax sidii qubada u wareegsan iyo gacmo aad u qaro weyn, lugo aad moodid inay yihiin darbiyada dhufayska ah, af aad u dheer, aadna u dhuuban sida kan cantaliyaaga, ilko aad dhagaxaan waaweyn moodid. Waxaa ka muuqdo boor iyo basaas, weliba asigoo badda ka soo baxay ayay haddana waxaas oo boor ah ka muuqdaan. Markuu odaygii kalluumaysatada ahaa arkay cirfiidkan weyn, ayuu jareeyey, iyadoo ilkihii xitaa isgaraaceen, candhuuftana liqi waayey, meel laga jirana garan waayey cabsi darteed. Cirfiidkii markuu arkay odaygii kalluumaysatada ahaa ayuu yidhi, laa ilaaha ila allaahu, Suleymaanna waa nebigii Alle. Kadibna wuxuu sii raaciyey, nebi allow, ha idilin mar kale, hadalkaaga ma khilaafi dooni, mana kugu caasi doono. Markaas ayuu odaygii yidhi, ma Suleymaan baad hadda nebigii allow leedahay, iyadoo nebi Suleymaan geeriyooday 1800 oo sano ka hor. Annagoo joogno aakhiru zamaan, maxay tahay qisadaada? Maxaana halkan ku geliyey? Cirfiidkii markuu maqlay hadalkii odayga ayuu ku yidhi, hadday saas tahay, bishaarayso odayahow. Odaygii ayaa yidhi, maxaan ku bishaaraystaa ood iigu bishaaraynaysaa? Cirfiidkii ayaa markaas yidhi, dhimashadaada ku bishaarayso, isla saacaddan inaan ku dili doono dilista ugu xumayd. Markaas ayuu odaygii yidhi, oo maxaan ku mutaystay inaan sidaas oo dhan la ii dilo? Wallaahi adigaa mutaystay in sidaas laguu dilo, ayuu yidhi. War maxaad iigu dilaysaa anigoo halkan oo aad ku dhibaataysnayd kaa soo bixiyey? Abaalkayga miyaad sidaan ka dhigaysaa? Markaas ayuu cirfiidkii yidhi, warkaas ka bax, ee dhimasho noocay doonaysaa? Markaas ayuu odaygii yidhi, waxaan ku weydiinayaa, muxuu yahay dembigayga oo maxaan kaa galabsaday oo sidaan iigu abaalmarinaysaa? Markaas ayuu cirfiidkii yidhi, haddaba anigaa kuu sheegayee dhegayso. Odaygii oo cabsanaya ayaa markaas yidhi, soo gaabi hadalka, naftaydii lugahaygee soo maraysaaye. Cirfiidkii ayaa markaasi hadalkii ku bilaabay, waxaad ogaataa odayahow inaan anigu ka mid ahaa ee jinnigii maariqiintii ahaa, waxaana ku caasiyey hadalkii nebigii Allah ee Suleymaan binu Daa'uud. Maalintii dambe ayuu wuxuu ii soo diray wasiirkiisa Aasif binu Barqiyaa, si qasab ah ayuuna iigu waday, wuxuuna ii geeyey nebi Suleymaan, waxaana la ii hor istaajiyey nebi Suleymaan hortiisa. Markuu ii arkay nebi Suleymaan, wuu iiga cudublaystay, wuxuuna ii soo bandhigay iimaanka Alle iyo inaan hadalkiisa adeeco, waana diiday. Markaas ayuu dalbaday sanduuqan, wuuna igu xiray, asigoona igu qatimay faraantigiisii magaca Alle ee weynaa, ee haddaad Alle ku bariso ku ajiibayo, ayuuna ku qoray. Wuxuuna amar ku siiyey jinnigii adeecsanaa inay igu tuuraan moolka badda, wayna igu tuureen. Markaan badda ku dhex xirnaa muddo 100 sano ah, ayaan waxaan ku qayliyey oo iga soo bixiyey meeshaan inaan hodan ka dhigi doono inta noloshiisa ka hartay. 100kii sano ayaa ka soo wareegatay, meeshanna qofna igama soo bixin. Markaas ayaan haddana ku qayliyey qof kasta oo iga furo inaan anna afuri doono.
kaydka dhulka oo dhan. 100 sano ayaa ka soo wareegatay, haddana qof iga furtay ma arkin. Kadib markay ka soo wareegatay 400 oo sano, waxaan ku qayliyey, qof kastoo iga furo waxaan u samayn doonaa wax kasta oo iga codsado. Mar kale haddana qof iga furto waan waayey. Markaas ayaan xanaaqay xanaaq aad u daran, waxaana ku dhahay qof kasta oo iga furo isla saacadda uu iga furo ayaan dilaa, anigoo dooran siinayo sidaan u dili lahaa. Markaasna adigaa iga furay ee niyeyso sidaan kuu dili lahaa. Markuu odaygii kalluumaysatada ahaa maqlay hadalkii cirfiidkii ayuu yidhi, waa cajiibullaahi, hadda qofkaad sugaysay inaad disho ee meesha kaa furi doono ma aniguu noqday. Markaas ayuu odaygii haddana yidhi, iska kay cafi, allah ha ku cafiyee. Markaas ayuu jinnigii yidhi, waa qasab inaan ku dilo si aan ballantayda u oofiyo, ee waxaad rabtid intaan ka dhima ka hor ii sheeg si aan kuugu xaqiijiyo, waana ballan inaan ku dilin anoo kuu xaqiijin. Markaas ayuu odaygii xoogaa fikiray, kadibna ayuu yidhi, magaca allaah ee weyn ayaan kugu dhaariyey, adigoo intaa la eg sidee ku gashay sanduuqan aadka u yar? Cirfiidkii markuu maqlay magaca alle ee weynaa ayuu gariiray. Markaas ayuu yidhi, ma waxaad rumaysan la'dahay inaan sanduuqan geli karo? Markaas ayuu odaygii yidhi, macquul maba ahan, waxaaba shaki iiga jiraa inaad sidaad sheegayso sanduuqan ka soo baxday. Markaas ayuu jinnigii yidhi, haddaba anigaa ku tusayee arag. Kadib Shahrazad waxay ogaatay in subaxii soo dhowaaday, sheekadiina way joojisay. Guud ahaan iyo gebi ahaanba halkaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa qaybtii 4 ee sheekadii 1000 habeen iyo habeen ama 1000 leyl waleyl.